ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raaga ayaa kulan la qaatay bulshada rayidka ee ku dhaqan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ujeedka taliyaha uu halkaasi u tagay ayaa ahaa inuu ku wargalo xaaladda guud ee bulshada iyo ciidanka ka howlgala tuulada Bariire oo ka tirsan degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo inuu ku dhiirigeliyo dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. ciidanka ayuu ku booriyay inay ka feejignaadaan dhagarta cadawga iyo inay gacan adag kula dagaalamaan Al-Shabaab isagoo u sheegay inay waajib ku tahay difaaca shacabka iyo dawladnimada. isagoo si hadlaya taliyaha ayaa ciidamada waxa uu ugu digay inay dhibaateeyaan dadka shacabka xilli dhawaan ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ay dad shacab ah ku dileen deegaankaasi Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. guud ahaan xubin kasto naga mid ah waxa ay u taagan tahay oo ay duurka ugu jirto oo ay uga soo fogaatay qoyskeedii oo ay uga soo fogaatay caruurtoodii oo ay uga soo fogaatay waalidiinteed oo ay u soo gashay halkan ayadoo dan shakhsi ah ka shaqeynaysa aysan jirin inay yihiin ilaalinta iyo badqabka ummadda Soomaaliyeed. Soomaa saas daraadeed wax kasta ee bulshadeena dib ku ah wax kasta ee dhaawacaya qaluubta bulshada cid kasto naga mid ahuna waa inay ilaalisaa bulshada. anaga waxaan u taaganahay waa bulshada, waxaan dareeska u gashanay waa bulshada, waxa aan ilaalinayno aan ka ilaalinaynana waa cid kasta ee halis ku noqon karta naftooda iyo maalkooda, sharafkooda iyo cisigooda. taas ayaan ka ilaalinaynaa. ugu dambeyn taliyaha ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan deegaanka Bariire isagoona ku booriyay inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka maadaama ay caruurtoodii iyo guryahoodii ugu soo tageen inay naftooda iyo hantidooda ka badbaadiyaan cadawga. ilaahay idankiisa ciidamada kale hadda jooga iyo adig maanta wixii ka dambeeya si nabadgelyo ah ku wada joogtaan. taagnaadaan sababta aad u taagantiin waa dareemi karaa. ma ahan inaad xoolada tashaan, ma ahan inaad cid dhibaataysaan, waa inaad tashaan nabadgelyo iyo ixtiraam. Xasan Cabdi Ibrahim, Halgan 24 TV, Muqdisho.